بسم الله. walaalayaal anigoo ah jaamac jaawali maanta waxaan halkan idinka soo jeedinayaa fariin walaaltinimo ururka Ayatiin Development Foundation oo dhawaan laga aasaasay gobolka Cayn una taagan inuu horumar gaarsiiyo gobolkaas iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. insha Allah saad aragtaanba shalay waxaa kormeer ku tegay guddigii fulinta Ayatiin Development Foundation, guddigaasoo u taagan in ay dhammaystiraan ilaa 8 mashruuc oo qabyo wada ah. shalay waxay soo mareen 6 mashruuc sidaad aragtaanba. markaa walaalayaal, walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan, far keligii fool ma dhaqdo, gobolka keligii waxba ma qabsan karo. waxaa loo baahan yahay inaynu iskaashanno. walaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya, gobolkay doonaan ha joogeen, degaankay rabaan ha deganaadeen, maamul goboleedkay rabaan ha ahaadeen, shacabka ah waxaan ka codsanaynaa inay soo taageereen ururka Ayatiin. waxaan halkan idinku soo baahin doonaa saadka ama dahabka loogu shubayo lacagta. walaalayaal, waxaad noo soo dirtaanba waa faa'iido. annaguna waxaa ballan ah inaanu mashaariicdaana dhammaystirno, kuwo kalena aanu abaabulno, deegaamada kale ee Soomaalidana aan insha Allah horumarka gaadhsiino, idinkana aanu markiina idin taageerno insha Allah. markaa saadkii iyo arrimihiiba waan idin soo gudbinaynaa. waxaan ilaahay idin uga baryaynaa qof kasta oo na soo caawiya oo $10 hadduu soo diro, 50 hadduu soo diro, 1000 hadduu soo diro, hadduusan waxba haysan oo xitaa $1 soo diro oo maanta qadadiisii uu yidhaaho alele kala badh oo maanta $1 u dir ururkaasi horumar fiican buu gaadhayaa. ujeedada uu leeyahayna insha Allah waa gaadhaya. marka walaalayaal, waxaan idin soo jeedinaynaa aan iskaashanno, aan iskarabsanno. horumarku xuduud ma leh, degaankii la rabaana laga fulin karaa. ummadda Soomaaliyeedna hadday isku tashato oo isku iskaashato, hadafkeeda waa gaadhaysaa. waddan walba iyo shacab waliba wuxuu jecel yahay horumarka. innaguna shacabadaas aynu ka mid nahay. marka insha Allah waxaan dhowaanaha aan idiin soo gudbin doonaa nambaradii iyo saadkii. waxaanad ka arki kartaan website-ka ayatiin.com oo shaqal gaaban wada ah, ayatiin.com. halkaas donate meesha ay ku qoran tahay insha Allah aada ka arkaysaan. guddigii shalay kormeerka soo sameeyeyna waxaan leenahay jasaakumullah khayr. waajibkiinii baad gudateen, shacabkiinii baad u shaqaynaysaan. halkaa ka wada. annaguna meelaan joognaba waa wadaynaa insha Allah iskaashiga iyo horumarinta. waxaan idin rajaynaynaa khayr. booqashadoodii ugu horeysay waxay ku tageen garoonka diyaaradaha ee Buuhoole, isbitaalka dhimirka jaamacadda bariga Afrika xarunteeda Buuhoole, xabsiga dhexe iyo weliba wadada weyn ee dhex marta magaalada Buuhoole. mas-uuliyiintan ka tirsan ururka Ayatiin ayaana waxay sheegeen in ujeedadu ay tahay sidii ay u dhamaystiri lahaayeen mashaariicaha qabiga ah siday ay kala mudan yihiin. sidii uu dhamaystiri lahaa, una midayn lahaa, ugana shaqayn lahaa, waxqabad iyo dardar hor leh ugu soo kordhin lahaa biidni illaahi tacaala. waxaynuna arki doonaa dhammaan mashaariicda gobolka Cayn ka socda
dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah inay caawiyaan. Inaan hadda joognaa waa gurigii loo dhisay carruurta agoonta ah. Waa dhulka ay booqashada ku marayaan waqtigan ka kooban maamulka dhulka ayatiin. Mashaariicdii la soo maray kulligood iyo kan imikaba waxa weeye waa mashaariic soconaysa oo ayatiin ay hadda waxa weeye doonaysa inay dadalgeliso. waa mashaariic loo baahan yahay dadkana wax taraya ama dawlad ha jooga ama guud ha jooga. wixii la qabto hore loo qabtaana waa wax dadka ayatiinkiisa waxa weeye u yaallo wey. waxaan dhex taaganahay wadadii magaalada dhexdeeda maraysay waxaan usii soconaayo haddana aan gaarayna. walaalayaal dadkii aad macnihii guddigii hadda aad daawanayseen waxay ahaayeen howlwadeenadii guddiga fulinta ee ururka ayatiin oo joogay buuhoodle. insha allah waxaa loo baahan yahay markaa walaalayaal meel aad joogtaanba inaynu iskaashano. marka ummadda soomaaliyeed ee ku nool soomaaliya gobolkay doonaan ha joogeena waxaanu ka codsanaynaa inay ururka soo caawiyaan. akownadiisiina haddii aad website-kaa geli kartaan insha allah gala. muxuu ahay numberku halkan waxaa laga yaabaa inuusan idinka muuqan, laakiin numberadu waxa weeye sad numberku waxa weeye eber 63 498 eber 658. insha allah website-kaas aad ka heleysaan qofkii website-ka heli kara. saadkii iyo dahabkii iyo accountka camal intuba halkaasi ka furan yihiin. marka waxaan ku dardaarmaynaa insha allah inaad hawshaa nala dhammaystaan. mashaariicda 8 ah ee qabyada ahna aad nala dhammaystirtaan. waxaana codsanaynaa in muxuu ahaye dadka soomaaliya jooga ay noo bilaabaan, qurba joogtuna ay markaa noogu xigsadaan insha allah haddii alla idmo. dadka deegaanka gobolka cayn degan waa dadka ka faa-iidaya iyagu mashaariicdan, iyadoo ummadda soomaaliyeed oo dhani ay ka faa-iideyso, hadday eeribood noqoto iyo hadday cusbitaal noqotoba iyo hadday jaamacad noqotoba. midina ma laha, qabiil ma laha, reer ma laha. waa wax ummadda soomaaliyeed oo u dhexeeya. qof kasta oo gobolkaa yimaado oo ku noolaada oo degaa uu ka faa-iidaya. markaa walaalayaal waxaanu idinka codsanaynaa inaad saadka iyo dahabka iyo accountka amal intaba aada wixii aad kusoo shubi kartaa. qof walba waxa uu awoodo inuu ku shubo insha allah. barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. inaynu midowno oo iskaashano ayay danta ku jirtaa. danta guud, danta gaarkihii waxa weye nin waliba gaar buu u wadaa, laakiin waxa weye danta guud waxaa la rabaa inaynu isugu wada tagno oo aynu isku kaashano. markaa walaalayaal hadalka waa idinku badiyey. ururka ayatiin development foundation 8 mashruuc ee qabyadaa dhammaystiriyey iyo horumarka deegaankaas una doonayana ummadda soomaaliyeed ee gobol kastaba ha joogto inuu iskaashi la sameeyo. wixii uu la qaban karana uu la qabto. waad nala soo xidhiiri kartaan. website-ka ayay emailka iyaga iyo qoraaladayadii ku qoran yihiin. waxa weeye waa iskaashanaynaa. waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.